deegaanka tuulo barwaaqo oo qiyaastii 40 kiiloomitir dhanka bari ka xiga degmada Cadaado ayaa waxaa ka taagan xaalado aad u adag oo soo food saaray dadka iyo dunyada halkaasi ku nool. Deegaankan waxaa ku soo barakacay kumanaan qoys oo isugu jira qaar ka soo barakacay colaadaha ka jira deegaano ka tirsan gobollada Mudug iyo Galgaduud iyo qaar ka soo barakacay abaaraha ka jira deegaanada Galmudug. dadka iyo dunyada ku nool deegaanadan ayaa waxaa hadda soo food saaray duruufo nololeed oo aad u adag sida biyo la'aan, cunto la'aan, daryeel la'aan caafimaad iyo qaar kaloo badan. mar aan halkaasi socdaal ku tagnay ayaa dadka deegaanka oo laga dheehan karay diihaalka iyo duruufta nololeed ee ay ku sugan yihiin ayaa waxay naga warrameen baaxadda abaarta halkaasi ka jirta iyagoona gurmad degdeg ah ka codsaday cid kasta oo wax uun ku tari karta. bismillaahi raxmaani raxiim waa cabdul maxamed siyaad aniga la yiraahdaa deegaanka wad la yiraahdaa ka soo guurnay biyo la'aan iyo tabar yaro iyo xooliyo naga xaasay ayaa isku qaanahaya awood aan biyo ku shubanana ma lihin hadii ay ku raacays kalena haba sheeginba hadii ay ku rooyay meeshaan ka kici weyn waxaan codsaynaa in hadii ay ku gacan la soo gaaro laakiin man toro oo hadii ay ku rooyay dadka qaraabada ah ayaguna biyo waa ku shuba waayeen annaga iyaga hadda hadii ay ku dadka yiri warcaba biyahaas aniga waxa la yiri cali xirsi cismaan guud dhaweyd waa ku yaraa dayrtaana haba yar wax roob ma gelin iyada soo saa waxa yimid dad aan yarayn oo beesha cadad hoostaga oo galsoor ka yimid oo qaar dhagtuur ka yimid oo qaar wad ka yimid qaarna halka iyo hogdugaag iyo dadkaan baraka ah ma yara deegaanka waxa weeye deegaan walba inay qabsadeen oo intii laami xaggaas qabsadeen aniga cali cabdulqaadir maxamed barra leeyahay deegaanka barwaaqo xaalku boqolkiiba boqol waa xaalku waa hooseeya dadku afarta koona waa iskaga soo barakacay bari waa ka yimid qoraxsin waa ka yimid dad calaad baa keentay dad waxa keenay daaqiyaro iyo maaragtay waxa keenay jidaalku adag oo cunno la'aan iyo mataqaanid iyo roobkii la waayay saas weey dadku maaragtay waa la isugu yimid meesha dad badan weey adoo hadii qoys hadii laga xisaabo dhowr kun waa gaaraya xaaladaha hadda ugu daran oo liita waa biyo la'aan baa ugu daran waxa hadda ka jira meesha baadkuna waa ku yar yahay marka hadda biyo la'aan baa ugu daran xooluhu waa liitaan aad iyo aad baa abaartu u saameeyay roobka hadda dayrooda loo dhowrayay waa la waayay kii hore guga waa ku yaraa oo dhul badan buu ka marnaa waxaan codsaynaa marka koowaad biyaan codsaynaa aad baa meeshan lagu ooman yahay meeshaanu laba calaamad isku daratay marka hore waa qorax oo geed male marka labaad waa bacaad oo maaragtay booyadaha waa dhibtay marka anaga booyadu biyo waa nagu dhibeen waxaan codsanaynaa adduunka ka codsanaynaa biyo ceelku waa muhiim oo ceelku waa wax horta sideedaba markaan waxa noo daran ceel haama ku gaaraynaaba waa nafteedena oo ma nahaba ceel hadda waxaan ku gaarnaa ma bahayno ceel nafba nuguma sinto xooluhuna maaragtay wax la gata male waa liitaan xooluhu bismillaahi raxmaani raxiim magacaygu waa maxamed cumar aadan waxaan ku noolahay deegaanka barwaaqo waxaan ka mid ahay dadka deegaanka oo tuulada la yiraahdo barwaaqo hoos yimaada waxaan ka cabanayaa oo aan ka warbixinayaa oo aan caalamka iyo dadweynaha iyo hay'adaha caalamka inta dhamaantood aan u sheegayaa meeshaan waxaa ka jira dhibaatooyin badan dad badan oo ku soo barakacay nuryaro horeysay oo dambeysay oo hadda roobkii u dambeeyay la waayay dhammaantiis kii hore oo ku yaraa ayadoo intaas ah oo maaragtay canaabta sidaa u canaabaysnayd oo haddana ay ku soo siyaadeen dad badan oo ilaa dhowr kun oo qoys ah oo dhan kastaba ka yimid waxaan ka cabanayaa biyo la'aan baad la'aan beec xumo xoolaha oo liita marka ka maaragtay aan ka warbixinayaa dadka inta la eg oo isugu yimid meeshaan oo maaragtay aad iyo aad tabardarro ay u hayso waxaan leeyahay hay'adaha caalamka si degdeg ah u soo gaareen ha u soo gurmadeen ha la arko dhibaatada haysa maaragtay gurmad degdeg ah la soo gaaro iyo maamulada iyo dawladda Soomaaliya
baahida ugu muhiimsan waxay tahay biyo la'aan waa lambarka koobaad caafimaad la'aan iyadoo aan maaragtay wax tabantaaba caafimaad aan lahayn oo dadka iyo dunyada labaduba ay jiran yihiin haddana aysan lahayn wax dee maaragtay u taagan oo caafimaadkooda ka warqaba ama maaragtay xagga caafimaadka ka taakuleeya cuntada ay cunaan oo laga yaabo ciddaas intaas la eg in markii 4 loo dhigo ay hal meeluhu ay maaragtay ay cunto heli karaan inta kalena ay iyagaas la nool yihiin oo iyaga hoyaadkoodaas ay la nool yihiin marna ay isla qadaan intii aan socdaalka ku maraynay deegaanadaasi miyiga ah ee abaaruhu ay ka jiraan waxaan tagnay tuulo barwaaqo oo xudun u ah deegaanadaasi waxaan halkaasi kula kulannay qaar ka mid ah bulshada ku nool tuulo barwaaqo oo qayladhaan xooggan ka muujiyey duruufaha ka jira deegaanka iyagoo codsi u diray maamulka galmudug dowladda federaalka ah hay-adaha samafalka iyo dadka ka soo jeeda deegaanka tuulo barwaaqo iyagoo ka codsaday in gargaar bini'aadanimo oo degdeg ah loo fidiyo dadka halkaasi ku nool aniga deegaankan joogo waxaa leeyahay barwaaqo deegaankan joogo waxaan ahay qof iska shayba deegaanka barwaaqo ku nool adiga xanuun ay qabtay lugaa waxa iga goysa bir wax dhaqtar iyo wax maaragtay kalkaaliyaa midna male adiga waxa weeye waa meeshaasaan ku dhaqtar la'anahay ku nahay adigu deegaankaasaan ku dhaqannahay waxa weeye marka waxaan u baahannahay dhaqtar iyo adigu deegaankaasaan ku noolnahay dad badan waa ku nool yihiin dad badan waa ku soo barakacay qayb iyo carro iyo daloo dhanaa laga soo kacay oo colaadi soo kiciday dad abaaraa soo kiciday oo waa lagu soo guuray waa qorax waa biyo la'aan adigu dhibaato ilaahay waa ma qabno balse dhibaato waa aan qabnaa kulayl iyo adigu qorax iyo biyo la'aan intaba waa qabnaa waxaan uga baahannahay hay-adaha samafalka adiga wixii ay heli karaan biyo ha ahaato dhaqtar iyo wax kasta ha ahaato wixii loo baahan yahay inay noogu soo deeqaanan u baahanna intaas qoraxya waa iska qabnay iyo biyo la'aan waxaase noo soo kordhiyey dadkaas asaguna dhibaataysanoo na soo kordhoobtay noo soo kordhiyey marka baahida ugu daran waa biyaha iyo caafimaad darro aan noogu sii daran iyo adigu qorax iyo wax kasta hay-adaha waxaan uga baahannahay inay adigu noo soo deeqaan uga baahannahay sidii ilaahay looga barto haddii calaf noo galo dhaqtar ceedada ugu sokaysa ceedadana baabuurna meelihiin lagu geeyo shidaalna male annaga meeshan dhaqtar la'aana nooguba sii daranba iyo biyo la'aantaasaa noogu sii daranba haddaan barwaaqo joogno qaado male qofkii adigu meeshan barwaaqo ah xanuun ku qabtaa meeshiisu ama ku dhintaa ama uu maarata sixila ku kacaa saasaan ka codsanaynaa marka waxaan u jeedaa dadkaas deegaanka naga maqan dadka soo barakacay iyo dadkii awal joogaba intaba inay taakuleeyaan u baahannahay haddii maaragtay dadkii naga maqanoo aduu muslimka ah inay noo soo taageeraanoo wax noo soo diraanan aan uga baahannahay waxaan ka tirsanahay la yiraahdo bugta badan oo ka jira dalka oo laga qabo deegaanka barakac lagu soo barakacay meesha awal anagoo baahnayn biyo nagu isbitaalna aan haysan ayaana lagu soo barakacay dadkii barakacaha way noo yimaadeen marka meesha cabasho badanaa ka jirta waxaan qabnaa isbitaal la'aan waxaan qabnaa oonka oo baraagaha aysan biyo noo gelin oon sanadkan aan roobsan sanadkii dhawaana roobsan waxaan qabnaa raashin la'aan xooluhu beec male waxaan qabnaa isbitaal la'aan inaan dadka markii ay baxaan laga jirrado aan dhaqtar uu kirayno annaga gaari annagiyoon lacag haysan ama qofkii meesha nooga tabaalaysmo oo maaragtay tacluusta nooga haysato saasaan ka qabnaa dalka iyo deegaanka dimarka foosha magaalo cadaadaan noogu sokayda la aado umulisa malihin maxaa tiraa kalkaalisa malihin maxaa tiraa meel oo maaragtay lagu sii meel gaara xitaa ma qabno magaalo gaari inga cadaadood meel nooga sokayda ma haysano dad badan ma ku nool yihiin marka hadda meesha aad joogtid deegaanka dad badan way ku nool yihiin
awal kumanaan ku joognay adiga kun ugu yaraan dugsilay ka kooban iyo maxaa tiraahdaa dad dugsata ah haddana waaba nalagu soo barakacay